taageerayaasha xulka qaranka Masar waxay dhaliil xoogan u jeediyeen xiriirka FIFA iyaga oo ku eedeeyay inay yihiin dad hal dhinac u janjeeray oona xalay la maalgeliyey lacag darteedana Argentina ku soo baxday saas darteedana ku soo hareen xulka Egypt. Kani waa mid ka mid ah ciyaartoyda oo ka tirsanaa Masar waliba kuwooda ugu firfircoonaa Zico ayaa lagu magacaabaa ninkan ciyaartii xalay dadka ka qayb qaatay ku jiray laakiin wuxuu ku dhaleelay FIFA inay tahay mani aysan ahayn meel kubadda cagta looga imaado waa kan asigoo hadaladiisa sii wata الحكم نوفير ريفري نوفير ظلم مبين وواضح بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 الأرجنتين بطولة موجهة حسب الله نعم الوكيل. وكان سيدا أريكتيد وحو دليل حوغن ujeediyey dhammaan xiriirka FIFA qaasatan madaxweynaha FIFA asigoo oo ku eedeeyay inuu yahay fadlan lacag ku shibo laakiin aysan ahayn mid kubad ah guuldarada ay soo gaartiin ay ahayn guuldaro sax ah laakiin cadaalad darro looga badiyay iyaga oo ku eedeeyay refereegi inuu yahay mid hal dhinac u janjeeray halka laga rabay dhexdhexaadnimo laakiin gabi ahaanba waxay ku sheegeen inuu shaqadiisa gabay sidaas darteedana oo kaliftay in Argentina ay soo baxdo xulka Egyptina sidaas looga ciribtiro sababaha ay u doorbidayaan ama ay dhaleeshan u keenayaan waxaa ka mid ah qaladaadkan oo hadda dhacay markii ugu horeysa labada qaladaad la daabo sidaad aragtid labadan qalad waa isku mid wax difference ah uma dhaxeey kan xulka Egyptia penalty laguma siina halka keni Argentina lagu siiyay penalty taasna loo diiday dhacdada labaad oo Argentina ku faa'iiday oo Egyptina dhulka loola jiray oo iyagana dhaliil xoogan ugu jeediyeen waa dhacdadan waayo tani waxay ka turjumaysaa labadan faawul aragtid wax difference ah u dhaxeey malahan qaladkan hadda ka hor kulan Arsenal iyo Manchester United ciyaarayaan ayaa qaladkan ka dhacay goosha Arsenal markii la dhaliyay kadib waa laga diiday laakiin kan waa la socodsay qaladka saddexaad oo barnaamijka ugu weyn keenay ayaa ah in xidigaha tackleska lagu sameeyay goosha laga dhaliyay ay ku dhaleelayaan inay ahayd qalad cad oo loo fiirin VAR halka Egyptia goosha markay dhalisay kadib VAR la aaday gooshina Egyptia laga kansalay halka Argentina isla dhacdadaas dhacdo la mid ah intay sameysay haddana gooshii wax VAR loo aadin oo gooshina lagu ansixiyay xulka Egyptia oo lagu iqaabay xulka Egyptia sababtaas waxaa keentay isdhaxgal iyo dhaliil xoog leh oo dhammaan taageerayaasha kubadda cagta FIFA money wallahi money ay ka hadlaan waxaana ka mid ahaa dadka ka falceliyey ama ka hadlay tababarihii weynaa ee loo yaqaano Special One ama Jose Mourinho wuxuuna ku eedeeyay xalay refereegi inuusan ahayn referee dhexdhexaadis ah oona hal dhinac u janjeeray asigoona sheegay in kubadda cagta dunida ay ka sii dhammaanayso cadaaladii hadday bisan tahay cadaaladdu way sii dhammaatay uu Jose Mourinho cadaaladdu kubadda cagta way sii dhammaatay ee waxay tagtay in loo adeego dad gaar ah ama looga adeego dana qaas ah waxaa kaloo ka falceliyey leejankii weynaa ee xulka qaranka Faransa iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Thierry Henry asigana Jose Mourinho hadalkiisu ku raacay wuxuu sheegay maxaa diiday in haddii qaladkii hore ee Egyptia goosha ku dhaliyeen ee qalad loo ansixiyay ee VAR soo aaday ama soo dhaxgashay qaladkii kaas la mid ah xulka qaranka ee Argentina
qaladkay sameeyeen in dib loo eego ama baaris lagu sameeyo ama faar soo dhexgasha sida kii hore maxaa diiday oo kaasna loo soo dhexgalay kana looga aamusay waayo qaladaadku waxay u muuqdeen kuwa sim ah aanay ahaan shakhsi ayaan ahay waxay ila tahay labadaas qalad in difference u dhaxaynin ama farqi saas weyn u dhaxaynin ee yihiin laba qalad oo isku agdhow ama laba qalad oo la dhihi karo waa isku mid ka mid ah goosha waa laga diiday halka mid ka mid ahna goosha loo cansixiyey waxaa kaloo dhacday u dhah qaladaad kale oo loo maleeyay penalty oo Egypt oo samaysay halka Egypt penalty laga dhigay oo hulka qaranka Argentina lagu abaalmariyay penalty mid la mid ah waxaa sameeyay Argentina laakiin looma joojin oo waa lagu socodsiiyey Argentina ayaana sidaas guusha ku xanatay tani waxay ila tahay aanay ahaan cadaalad dara oo ka dhacday kubadda cagta ama u soo hoytay guud ahaanba sportska meel walba uu joogo waa hadalkii Thierry Henry daawadayay dhegaystay adiga maxaad ka aaminsan tahay kulankii xalay mid cadaalad ku dhammaaday ama mid cadaalad daro ku dhammaaday